kulanti wacan dhammaan daawadayaal waa qaybteennii saddexaad uguna dambaysay waraysigii aan la yeelanay Dr. Axmed Faarax Ducaale iyo dhibaatooyinkii ay u geysteen maamulka Soomaaliland iyo boqor ku sheega Ilaahba boqore Cusmaan Aw Maxamuud Buurmadow. haddii aadan dhegeysan qaybteennii koowaad fadlan dhegeyso qaybteennii koowaad iyo labaad si aad u fahanto waraysigeenna. waxaa la ii qorsheeyey inaan Hargeysa ka duulo koox damiir laawayaal ah oo jooga Nairobi. waxay isku dayeen inay hakiyaan safarkayga ayagoo ku andacoonaya in Hargeysa aan la keeni karin diyaarad, halka cagsigeeda ay jiraan duulimaadyo badan oo maalinle ah oo ka baxa magaalada, iyadoo diyaaradaha UN-ta ee gargaarka bini'aadamnimada ay Hargeysa ka baxaan maalintii 3 jeer. 4 bilood ee ugu adkeed noloshayda kadib waxaan Hargeysa ka soo raacay diyaarad ka mid ah kuwa UN-ta, waxaana ay galbiyey gaashaanle sare Xasan Biid iyo 20 askari oo u watay ilaa uu igu hubsado jaranjarada diyaaradda. Buurmadowbe iyo maleeshiyadiisana wayna daba socdeen ilaa iyo daqiiqadii ugu dambeysay. waxaan ku guuleystay inaan raaco diyaaraddii iyaga oo aan ka fogeyn diyaaradda, kadibna si lama filaan ah ayaan jaranjarada qoorta ugu soo dhiibtay, waxaana ku iri raggii hubaysnaa anigoo caraysan, waxaad dhacdeen markabkayga, aniga iyo shaqaalahayga waadna afduubateen, anigoo ah nin Soomaali ah oo aad wadaagtaan dhaqan iyo diin, taasoo ka soo horjeeda sharciga Islaamka oo gabi ahaanba ka hor imaanaysa xeer dhaqameedka reer guuraaga ah ee soo jireenka ah, soo dhoweynta iyo badqabka dadka safarka ku ah dhulkiinna. waan soo noqon doonaa si aan hantidayda u soo ceshto maalin maalmaha ka mid ah. haddii aan awoodi waayo inta aan noolahay, waxaa laga yaabaa in faracayga iyo bulshada aan ka dhashay ay sidaa yeeli doonaan. ogaada inaad qaadateen biraha markabka oo keliya, laakiin weli waxa igu yaalla maskaxdii ay ka soo guuxday, waxaana u tilmaamay madaxayga. hadalkaygii gaabnaa ee geesinimada lahaa waxa uu ku reebay dhowr ka mid ah raggaasi fajac, waxaanan dareemay geesinimo wakhtigaasi oo aan runta ugu sheegayo rag hubaysan oo mooryaan Soomaali ah. may ahayn tallaabo caqli gal ah, si kastaba ha ahaatee waxay ahayd in runta loo sheego. markii ay diyaaradda u kacday Nairobi oo aan ku nastay 7 oo aan helay dawooyin caafimaad oo aan u baahnaa, 7 kadib waxaan u dhoofay Copenhagen, halkaasoo ay igu sugayeen qoyskayga aan jeclahay. waxaan dib ugu noqday Denmark anigoo ahayn ninkii horey uga tegay. waxaan qaadanayay dawooyin culus 2 sano ee ugu horeysay. cadaadiskii badnaa iyo niyadjabkii ayaa maskaxdayda tashuus ku abuuray nasiino la'aan, taasoo keentay in daweynta ay waxba ii tari weyso. waxaan go'aansaday in aan sii wado dadaalkii aan ku heli lahaa markabkayga iyo dhammaan shixnadiisa. waxaan isku dayay markii ugu horeysay in maamulka dekedda Barbara uu markabkayga u sharaaciyo dekedda Boosaaso ee ugu dhow ama dekedda Muqdisho. waxay iigu jawaabeen oo ay ku andacoodeen in markabkaygii la dayacay oo aan tago maxkamadda magaalada Barbara ee gobolka Saaxil. kadib markii maareeyaha dekedda Cali Maxamed Cumar Xorxor uu maqaal ku daabacay wargeyska maxalliga ah ee Al-Jamhuuriya, maqaalkaasoo ahaa been abuur, kaasoo uu ku sheegay in markabkaasi uu xidhnaa ilaa bishii Julaay 2001. waxa uu ku qoray sida taas, isaga oo ku tilmaamay beentaasi qaawan ee uu ku doonayay in uu si bareer ah bulshada ugu maran habaabiyo oo uu meesha ka saaro mas'uuliyadda ay ku lahaayeen xatooyada markabkayga. waxaa la ii sheegay in Cigaal uu qaatay dhammaan 5tii Mercedes-Benz ee saarnaa markabka, isagoo ku daray kolonyadiisa baabuurta ee madaxtooyada, halka Buurmadow kaaba qabiilka u qaatay Land Roverskii matoorada naftada ee dhaliya korontada, kaasoo aad u weyn oo weliba ku filan magaalo oo dhan. waxa qaatay Cali Cumar Maxamed Xorxor laftiisa. halka markay ay marayso, waxaan si buuxda u aqbalay in xumaanta nimankan igula kaceen ay tahay wax ka badan sidii ay horay ugu taragaleen. boolidii ay ka filayeen ka weynaatay. dhammaan qalabkii kalluumaysiga ee baaxadda weynaa ee aan ugu talagalay magaalada Kismaayo waxaa lagu iibiyey suuqyada gudaha Soomaaliland. Maxamed Ibraahim Cigaal waxa uu geeriyooday bishii May 2002. waxaa xilka la wareegay Daahir Yaala Kaahin oo qaaday tallaabo aanan filayn, isagoo markabkaygii MV Zondana iibiyey kadib markii uu wadaxaajood la yeeshay dad u dhashay dalka Hindiya inta u dhaxaysay 2005 ilaa 2006, kadibna ay ka iibsadeen markabka. aad baan uga naxay, waayo isma lahayn waxa uu qaadi doonaa waddadii taliskii hore, balse nasiib darro ayagii waa uu ka daray, maadaama uusan xitaa weydiinin cidda leh markabkan ama uu la yimaado cadaalad. ogow, maamulka Soomaaliland waxay ku dhisnaayeen xadgudubyo aad moodo in lagu kala tartamayo. xaqiiqaha rasmiga ee markabkayga waxaa si xanuun badan iigu sheegayay saaxiibkayga oo maamulo ka ahaa shirkadda maraakiibta ee Tabruuk. ishayda gudaha
intii aan ku jiray arrintan foosha xun. halkaa markuu uu marayo waraysigeenna waxaan dareemay niyadjabka Mr. Ducaale waxaana weydiiyey sababta uu u sugay ilaa iyo maanta oo ah in ka badan 20 sano kadib. waxa uu igu jawaabay si degan: sanadihii la soo dhaafay waxaan raadiyey sharciyo sax ah iyadoo la adeegsanayo nidaamyada sharciyada ee la dejiyey tan gudaha iyo dibadda, anigoo qarsan mar walba ma aanan guul dareysan mana jiro sharci xadidayo oo ku saabsan raadinta cadaaladda. si kastaba ha ahaatee waxaan aaminsanahay isla maamulka Somaliland ee dhibka ii geystay in uu jiro ilaa iyo maanta uuna sixi karo qaladkii la iga galay. waxaan aaminsanahay in si gaar ah la ii beegsaday sababtoo ah waxaan ahaa nin daarood ah oo ay isku beel ka soo jeedaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre oo ay Somaliland ay la dagaalantay sanadihii dambe ee u dambeeyay xukunkiisa militariga. anigu waxaan ahaa maareeyo markab ganacsi oo shakhsi ah, askari dawladeed ma ahayn ama shaqaale. haddaba maxaa la ii ugaarsaday sidii anigoo qayb ka ahaa colkiina? waxaan sidoo kale aaminsanahay haddii markabkayga lagu dhici lahaa meel kale oo Soomaali ka mid ah oo amniyan ka qatarsan Somaliland, waxaan dib u heli lahaa markabkayga oo fuul ah ama haaf ah. waxaan sidoo kale aaminsanahay in nabadoonka Soomaaliyeed uusan wax afduuban. waxaa lagu yaqaanaa nabadoonnada Soomaaliyeed sharaf iyo inay ka shaqeeyaan cadaaladda iyo nabadda bulshada. dhinaca kale, nabadoon kusheegii ii afduubtay kaasoo ii xiray jirdilkana ii geystay isaga iyo maleeshiya beeleedka u daacadka ahaa ayaa maanta sheeganaya inuu yahay boqor. waxaan maqlay inuu hadda ku sugan yahay dalka Turkiga oo uu ka soo kabanayo qaliin lagu guulaystay. markasta oon wejigiisa arka waxaan dib u xasuustaa xiriggii dheeraa ee bini'aadanimo ka baxa ah ee ii geysteen isaga iyo maleeshiyadiisa. waxaan qaatay go'aan ah in aan si fagaaro ah u furo wejiyada saxda ah raggii ii afduubtay, kaasoo hadda sheeganaya inuu yahay oday dhaqmeed isagoo weliba isa siiyey magaca boqornimada ah. ninkan Buurmadow la yiraahdo waa uu ka fog yahay nabadoon iskaba dhaafay boqornimo. waxaa muhiim ah inaan foolkafool u hor istaago aan runtan u caddeeyo bulshada Soomaaliyeed aniga oo tusayo qofka dhibkan ii geystay. waxaa kaloo muhiim ah inaan iftiimiyo arrinta colaadda qabiilka oo ah khatarta ugu xun ee intii la xasuusto. waxaan aaminsanahay marka aan soo bandhigo ficilada foosha xun ee raggii ii afduubtay inaan gacan ka geysanayo inaan dhiirigeliyo kuwa ila midka ah ee laga yaabo inay xadgudubyo u geysteen maamulada iyo kuwa sheegta nabadoonnimada ee hubaysan. waxaan aaminsanahay in lagula xisaabtamo qaladaadkiisa oo ay muhiim tahay in cadaaladda la hor keeno. si taasi loo gaaro waxaan caawinaad ka raadsaday koox sharciyaqaano ah oo aan hadda ku guda jiro diyaarinta dacwad ka dhan ah Buurmadow. sidoo kale maamulka Somaliland waxaan leeyahay kow waa inay si buuxda u qaataan mas'uuliyadda falkan cad ee burcadbadeednimada oo ay ka bixiyaan xogta ku habboon ee ku saabsan ciddii ku lug lahayd qorshaha iyo sidii ay iskaga indhitirtay walwalka mulkiilihii markabka iyo sidoo kale warqadihii badnaa ee ka dambeeyey. dhacdadani waxay dhacday 20 sano ka hor waxayna dhibaato dhaqaale iyo mid shucuub u geysatay nafteyda iyo ninkii aan shiraakto ku wada ahayn shirkadda Somdana Marine Services. waxaan dalbanayaa magdhow ku habboon xatooyada markabkayga ganacsi ee ay u geysteen badmaaxayaal burcadbadeed ah oo taageero ka helayay rag ka tirsanaa maamulkii Somaliland, aakhirkiina uu iibiyey madaxweynihii hore ee maamulka Somaliland. tani waxaa ku jirta dib u habeyn lagu sameeyo qiimaha suuqyada xilligaas iyo kan maanta. waxaan aad ugu boorinayaa maamulka Somaliland inay si degdeg ah arrintan uga fiirsadaan oo isla markaana ay ka soo saaraan go'aano cad oo cadaalad ku dhisan. taasi waa fariintayda mudane. tani waxay ahayd codkii u dambeeyay ee uu iga tagay mudane Axmed Faarax Ducaale. mudane Axmed Faarax Ducaale waxa uu ii tusiyey liis dukumiintiyo sharci ah oo tafaasiil ka bixinaya lahaanshaha iyo diiwaangelinta markabka, warqadihii ay isdhaafsadeen dekedda Berbera iyo sidoo kale amarka maxkamadda. waxaan go'aansanay kuwaani oo ah dukumiintiyo shakhsi ah in lagu daro maqaalkan. maqaalkan waxa uu ku salaysan yahay xog laga soo aruuriyo waraysi lala yeeshay Axmed Faarax Ducaale. si kastaba ha ahaatee waxaa xusid mudan inaan sidoo kale la xiriirnay xukuumadda Somaliland iyo maamulka dekedda Berbera sida caadada inoo ahayd dadaalka aan ku bixinno inaan faallo iyo xog ka helno dhammaan dhinacyada ay khusayso. hase yeeshee xukuumadda Somaliland iyo dekedda Berbera midna kama jawaabin codsigeenna. wax faallo iyo xog dheeraad ah toona kama aysan bixin. macluumaadka ku jira maqaalkan waxaa loo soo bandhigay sida uga saxsan ee suurtagalka ah iyadoo lagu salaynayo macluumaadka aan ka helnay wakhtigii daabacadda